Soomaali jecleedaa tagtay intii dawladnimada Soomaaliya ka soo horjeedina way maqayeen arintaas marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas'uuliyiintooda waxay ku abuurtay aragti cusub aniga horeyaan u ogaay in Jubbaland ay dawladnimo Soomaaliya rabin in Puntland ay ka dhowdahay Somaliland oo looga gorgortamo intaba waa ogaanay marka laakiin shacabka Soomaaliyeed hadii markaas anoo si toos ah war wax uu sheegay la arko xildhibaanka muxuu dawlad goboleedkaas u weerarayaa in la yiraahdo ayaa suurtagal ah ama xildhibaan saaxiibkay oo kursiga la fadhiyo dhulkaas laga soo doortay oo idibsado laakiin hadda kiyaar dadkii oo dhan 100% waxay wada ogaadeen in labadaas dawlad goboleed ayna rabeen Soomaalinimo waxaan ogahay dawladdii ka horeysay heshiis idoo la soo heshiis gaar ah la gaalay Puntland oo ay marqaati wasiirkii arrimaha dibadda marqaati loo keensaday Ethiopia ee faragelin dalkeena ay ku qasbeen in marqaati heshiis Soomaaliya dhaxdeeda ka dhacay marqaati in loo yeelo Cabduuli oo ahaa waxyaabaha oo diidanay waxay ahayd 4.5 maanta asaga 4.5 iyaga 4.5 oo leenayo oo rabo doorasho dadban iyo 4.5 marka markii aan iraahno jannaha la galo iyaga waxay leeyihiin naar la galo markii muxuu ahaay gaab iyo muxuu ahaay wax ay jiraan iyaga waa cid qaylinayso gaabkan ka qaylinay marka marnaba waxa dhibaysa waxa la yiraahdo dawladnimada Soomaaliya wayna isma hadiyeen oo dawladnimadii ayay ismoodeen inay ku naaxeen sax ma dawladnimo haday dawladnimo timaado cid meel nabad joogaysa mala dalka oo dhan asaga in adeerkiisa dadku ugu xigaa ku qabsanaya xilka qof walba waa la isku wada dhagaa waa ognahay waxay dawlad la'aan ayna soo marsiisay cidii ogaa og cidii ismoogmoogaysiinaysay iidaa og hal ururo USC la yiraahdo ayaa ilaa min Boosaaso ilaa iyo min Gaarisa ilaa Wajeer laga qaylinay oo